Dalka Soomaaliya boqolkiiba 99 waa dad Islaam ah. Haddana waayadii u dambeysay waxaa ka jira dhanka mas'uuliyiinta u sarreeya dalka haddii ay ahaan lahayd qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo weliba golaha xildhibaanada ee labada aqal ayaa u doodaya wax diinteenna ka fog, iyadoo inta badan la isku dayay in la ansixiyo dadka isku jinsiga ah inay isku galmoon karaan islamarkaasina bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ay ka noqdaan wax caadi ah. Xildhibaanada ayaa ku kala aragti duwan, iyadoona muran badan iyo dood ay ka dhacdo kalfadhiyo badan oo baarlamaanka ay ka yeesheen arrimahaasi. Arrintani ayaa hataa waxa ay gaartay in lagu eedeeyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dalka Soomaaliya ugu sarreysa in ay qayb ka yihiin, taasoo ay ka mid ahayd taliye Zakiya oo ah gabar Soomaali ah balse ka soo laabatay dalkaasi Ingiriiska oo in muddo ay ku nooleed. Haddaba Zakiya oo keliya ma aha madaxda lagu eedeynayo in ay u oleeyaan, walow Zakiya ay iska fogeysay arrintaasi ayna sheegtay in aysan iyadu shaqo ku lahayn, balse qowmuluudka waxa loo yaqaan waa dadka isku jinsiga ee isu galmoonaya ay ku soo badanayaan gudaha dalka Soomaaliya, maadaama kiisas badan oo ku aadan ay aragtay wiilal la soo kubsaday. Taasi ayaa waxa ay muujinaysaa in fasahaadka iyo weliba xumaanta ay Soomaalidu qaadanayso ay sii badanayso, islamarkaasina madaxda qaarkood la arkayo iyagoo u doodaya. Baarlamaanka dhexdiisa ayaa waxaa ka dhacda doodo aad u kulul oo inta badan la isku soo celceliya, iyadoona walow aysan waxba ka miro dhalin, balse inta badan ayaa aad loogu soo celiyaa sidii arrintaasi loo ansixin lahaa. Dalalka Islaamka ee ka jira dunida ayaa cadaadisyo kala duwan ay haystaan, iyadoo dhaqamada reer galbeedku inta badan la rabo in laga hirgeliyo. Dalka Qatar oo bishan aynu ku guda jirno uu ka furmay Mondiyaalka adduunka oo ay ka qayb galayaan dalal kala duwan oo reer galbeed ah, ayaa waxay gabi ahaanba iska fogeeyeen wax kasta oo lagu taageeri karo qowmuluudka iyo astaamaha inta badan gaalnimada muujisa. Waxa ay diideen calaamad ka mid ah calaamadaha qowmuluudka in garoomada lagu arko, islamarkaasina lagu soo dhoweeyo hataa taageerayaasha calaamada gacmaha ugu jira ama fanaanad ahaan sawir ugu dhegan yahay in iridda kore ee garoomada laga celiyo, iyadoo tigidhkoodii uu u jaran yahay. Iska badaa ciyaartoyda horaantii geemkii ugu horreeyay dalka Ingiriiska ayaa Harry Kane oo ka mid ah xulka dalka Ingiriiska isku dayay calaamada kabtanka ee all-in-one-ka inuu soo xirto, islamarkaasina horey ay ugu sheegeen FIFA in uu kabtankii soo xirta calaamadaasi uu qaadan doono kaarka huruudda. Taasi oo cabsi laga qaba awgeed ayay u soo xiran waayeen kabtano badan oo reer Yurub ah. Kaliya Soomaaliya kama taagno ciladani, balse dalalka Islaamka dhammaan ayaa cadaadis lagu saaraya siday u aqoonsan lahaayeen qaarkood badan dadka qowmuluudka ama isku jinsiga, islamarkaasina ay u ansixin lahaayeen. Balse Qatar ayaa tilaabo adag ka qaadatay, islamarkaasina meel adag mabda'aasi ka istaagtay, tusaalena u ah dalal kala duwan ee Islaamka. Fadlan haddii ay janaalka ku cusub tahay nagu soo biir, like-ta nagu dhiirageli, subscribe-ka nagu taageer, sidoo kale commentiga fikirkaaga nagula soo wadaag, oo waxaad jeceshahay in janaalka looga hadlo nagula soo sheegaray. Waxaad daawanaysaan Jiilka Cusub.